بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qubanaha Barrow Show qodobada aan idinkugu haya xilligan waxa kamid ah dawladda Syria ayaa si rasmi ah u sheegtay in ay ka laabanayso wada hadalka la qorsheynayo inay la galayso nidaamka Israel haddii aanay Tel Aviv si rasmi ah u dhaqan gelin in ay ka baxayso dhulka ay dawladda Syria leedahay oo ciidamada Israa'iil ay xoogga ku joogaan arrintan ayaa jawaab u ah hadal hore uga soo baxay mid kamid ah golaha wasiirada Israa'iil oo sheegay heshiis kasta oo la gaaro dalkan Syria in aan laga bixi doonin buuraha Jowlan haddaba arrintan ma waxay ka dhigan tahay fadeexad uu la kulmayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo wada hadalladan gadaalka riixayay sidoo kale wadamada Carabta go'aanka ay qaadatay dawladda Syria maxay uga dhigan tahay warbixin ayaan arrintaasi idinka sii doonaa wasiirka amuraha dibadda ee Israa'iil Gideon Sar lagu magacaabo ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah u sheegay in nidaamka Israa'iil uu ku daalay dagaalada muddada dheer ka soconaya magaalada Gaza sidaa daraadeedna ay doonayaan in ay hadda qaataan wada hadal iyo xabad joojin dagaaladaasi lagu soo afjarayo tani ma waxay ka dhigan tahay in Israa'iil ay tabar u weysay dagaaladaasi inay sii wado mase waxay ku dhiig baxday dagaaladii ay la gashay dawladda Iran xaalka gobolka bariga dhexe saaka waa sidee barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan saaxiibayaal ciidamada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ah ee Hamasna waxa ay markii ugu horeysay ku dhawaaqeen in maanta ay dileen sargaal sare oo ka tirsan kooxda ama nidaamka Israa'iil ee dagaalada ba'an ka wada magaalada Gaza xilli dagaaladu ay sii kululaanayaan wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi iyo waliba dhaqdhaqaaqyada gacanka Hormuz oo ay la leeyahay dawladda Iran ayaa xirtay ayaan idin la wadaagi doonaa aan ku horeeyo wararka ka imaanaya dhinaca dawladda Syria madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa in muddo ku dadaalaya sidii wada xaajood iyo isafgarad isku bedela aqoonsi dhab ah iyo mid diblomaasiyadeed uga dhaxwaday nidaamka Israa'iil ee xoogga ku haysta dhulka Falastiiniyiinta iyo dawladda Carbeed ee Syria arrintan ayaa waxa ay soo bilaabatay tan iyo wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha cusub ee Syria Ahmed Sharac ay horey loo oran jiray Abu Muhammad al-Jawlani uu sheegay dawladdiisu inay diyaar u tahay inay ka shaqeyso nabadgelyada gobolka bariga dhexe marnaba aysan doorbidayn dagaalada soconaya inay qayb ka noqoto Syriana haatan ay u diyaarsan tahay in geedo cusub oo siyaasadeed ay jeexato laakiin hadda markii la fiiriyaba xaaladda ayaa u muuqanaysa inay sii bedelayso dawladda Syria ayaa markii ugu horeysay si rasmi ah ugu dhawaaqday in aanay diyaar u ahayn in wada xaajood iyo wada hadal ay la gashay Israa'iil ay sii wado ilaa iyo inta Tel Aviv ay ka laabanayso rabitaankeeda ku dhisan damaca waalida ah ee qariska toornimada lagu sheegay oo ay doonayso in dawladda Dimashqna ay kula heshiiso qaybo kamid ah gobolada dalkaasina ay xoog ku haysato oo ay sii gumaysato sargaal sare oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters oo ka tirsan dawladda Syria ee cusub ayaa waxa uu yiri wada hadallada waxay noqonayaan kuwo dhicisoobaya haddii nidaamka Netanyahu uu hogaamiyo ee damaca waalani uu hagayo aanay si rasmi ah u dhaqan gelin in dhulkeena ay ka baxayaan isla markaana inta kuma simin oo waxa uu sidoo kale sheegay heshiis kasta oo la galo Israa'iil waxa hagi doona kii 1974 ay la gashay dawladda Syria ee ku saleysnaa kala xadeynta soodimaha iyo waliba xuduudaha labada dhinac u yaalay taas oo ay ku xadgudubtay buu yiri Israa'iil hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump uu maalmihii ugu dambeeyay aad u amaanaya madaxweynaha wadanka Syria Ahmed Sharac oo uu ku sheegay inuu yahay hogaamiye dhalinyaro ah fariid ah geesi ah oo galasho sareeya laakiin hadda arrimahaasi waxay u muuqataa inay meesha ka baxayaan muxuu yahay sababta Trump uu u doorbidayo heshiis dhexmara Israa'iil iyo dawladda Carbeed ee Syria madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo hadda aad moodo inay da'da ka daba imaanayso ayaa dadaal badan ugu jira sidii markii uu xilka ka dago oo uu hanan lahaa
abaalmarinta nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize. hase ahaatee arrimahan uu ku shirtagaya ayaa waxaa ka mid ah heshiiska uu kala dhexdhigayo Israa'iil iyo dowladda Syria. hase ahaatee hadda waxay u muuqataa in Israa'iil ay wax kasta cagta saarayso, dowladda Syriana ay tilmaamayso in qarannimadeeda ay difaacanayaan. haddii labada dhinac ay heshiis rasmi ah wada gaaraan, waxay noqonaysaa nidaamka Israa'iil inuu caasimadda Dimashq ka furto safaarad, halka dowladda Syriana ay Tel Aviv ka furanayso safaarad, taas oo macnaheedu yahay dalka Syria inuu si rasmi ah u aqoonsaday jiritaanka wax la yiraahdo dowladda ay leedahay Israa'iil. goor dhaweyd wasiirka amuraha dibadda ee nidaamka Israa'iil ee xooga ku haysta dhulka Falastiiniyiinta ayaa waxa uu la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana uu tilmaamay in nidaamkiisa uu diyaar u yahay inuu qaato xabad joojin rasmi ah iyo heshiis nabadeed oo ka dhaqan gala magaalada Gaza, isla markaana lagu soo abiyo colaadda muddada dheer halkaasi ka taagan ee dhiigga fara badan uu ku daatay. waxa uu yiri ahmiyadda la siinayo nabadda ayaa noqonaysa mid guud ahaanba dagaalka soo afjari karaysa. waxaan rabnaa ayuu yiri in dhinaca Xamaas ay miiska wada xaajoodka soo fariistaan si dhinacyada kala tabashada ay qabaan ay meesha uga baxdo. Gideon Saar ayaa waxa uu ka mid yahay wasiirada sida gaarka uga xiran ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. hadalkan dabacsanaanta badan ee ka muuqato ee ka soo baxana waxa uu noqonayaa mid muujinaya Israa'iil nuglaashiya haysta, taasi oo khubarada istiraatiijistayaasha ah ee dagaalku ay leeyihiin waxay ku fashilmeen dagaaladii ay la galeen dowladda Islaamiga ah ee Iiraan, taasi oo dhalisay in dhiigbax fara badani uu ku dhaco, isla markaana hadda dhaqaale ahaan xitaa aysan tahli karin in ay colaadaasi ka taagan magaalada Gaza ay sii wadaan. horey Israa'iil ayaa dagaalada ka soconaya Gaza ugala kulantay dhibaatooyin xoog leh, iyadoo hindisihii uu soo jeediyey la taliyaha ama ergeyga gaarka ah ee Mareykanka gaar ahaan Donald Trump u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff ay horey u diideen xubno sarsare oo ka mid ah golaha wasiirada Israa'iil, gaar ahaan wasiirka amniga qaranka Itamar Ben-Gvir iyo waliba wasiirka maaliyadda Smotrich oo ka soo jeeda laba xisbi oo mayal adag oo xagga diinta sheegta in dhulkaasi ay iyagu leeyihiin. mid ka mid ah labadaas wasiir ayaa horey ugu xadgudbay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, taas oo su'aal gelisay xitaa jiritaanka qaar ka mid ah madaxda dowladaha Carbeed saameynta ay ku yeelan karaan adduunka. hadda hadalkan ka soo baxay nidaamka Israa'iil ayaa muujinaya nuglaashiyaha xaaladda dagaalku inuu aad ugu sii adkaanayo. isla wararka magaalada Gaza ayaan ku guda jiray. kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ah ee Xamaas ayaa ku waramay in ay dileen sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Israa'iil, iyadoo dhinaca kale la sheegay in Israa'iil ay la kulantay marinka Gaza dagaal aad u xoog badan. telefishinka Al Jazeera ayaa goor dhaweyd tabiyay in weerarkan uu noqonayo mid muujinaya Israa'iil in aysan tabar badan u hayn dagaalada hadda inay sii wado, waxaana uu muuqanayaa gobolkaasi xaaladiisu in ay sii adkaanayso, iyadoo labada dhinac ay hadda doonayaan in xabad joojin rasmi ay galaan. wararka qaar ayaa tilmaamaya in Israa'iil xabad joojinta ay dalbanayso ay ku saleynayso in marka hore ay rabto inay u gacan banaanaato dagaal weyn oo ay ku qaato Xuutiyiinta Yemen iyo sidoo kale dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaanba barnaamijka xilligan oo aad si toos ah uga daawanayseen baraha bulshada ee Facebook iyo YouTube. fadlan si aad macluumaad iyo warar kale oo dheeraad ah u heshaan ku soo biira YouTube-keena oo subscribe saara. tan iyo kulanti dambe waa Cabdicasiis Barrow idile nabadgelyo.